muuqaalkan maanta waxaan rabaa inaan idinkula wadaago xildhibaanad Ilhaan Cumar oo ay weheliso xildhibaanad Pramila Jayapal oo ka tirsan guddi hoosaadka Congress-ka u qaabilsan immigration-ka iyo weliba guddiga la xisaabtanka hay'adaha dowladda ayaa shalay waxa ay booqdeen dhismaha la yiraahdo Wibble Federal Building oo ciidamada ICE ay ku xiraan dadka ay ka soo qabtaan gobolka Minnesota. Haddaba markii ay tageen maxay kala kulmeen su'aalihii ay weydiiyeen xubnaha ICE ee halkaasi ku sugnaa maxayse ahaayeen maxayse tahay sababta ciidamada ICE ay uga caroodeen su'aalahaasi ay weydiinayeen xubnahan ka tirsan Congress-ka intii ay shirka jaraa'id qabanayeen markii ay booqdeen kadib oo bannaanka amaba albaabka dhismahaasi ay shir jaraa'id ku qabteen oo gawaari dad la masaafurinayo ay saaran yihiin dhismahaasi ay ka soo baxeenna waan idinla wadaagayaa sidoo kalena imise qof ayaa hadda gobolka Minnesota ciidamada ICE ugu xiran arrimahaasi oo idil ayaan rabaa inaan idinla waxaan ognahay markii howlgalkii Operation Metro Surge uu soo gabagaboobay oo ciidamadii ICE ee faraha badnaa ee gobolka Minnesota joogayna intooda badan la qaaday in weli ciidamada ICE howlgalla ay ka wadaan gobolka Minnesota isla markaana dad ay xirayaan haddaba Congress-ku markastaba isaga ayaa la xisaabtanka hay'adaha dowladda qaabilsan maxaa yeelay lacagaha ay ku shaqeynayaan Congress-ka ayaa ansixiyay dastuurkuna waxa uu ogolaanayaa in hay'adahaasi ay la xisaabtamaan lacagtii uu Congress-ku ansixiyay sidee u adeegsanayaan in ay la xisaabtan ay ka sameeyaan dhowr jeer waxaan ognahay intii howlgallada Metro Surge ay socdeen Ilhaan Cumar iyo xildhibaano la socdo in loo diiday xaruntaasi federaalka ah oo dadka sharci darrada ah ee la soo xiro ee Wibble Federal Building in loo diiday inay galaan mararka qaar markii loo ogolaadayna loo diiday inay arkaan dadka ku xiran markaas kadib waxa ay dacweeyeen wasaaradda amniga gudaha oo ay yiraahdeen la xisaabtankii aan dastuurka uu noo ogolaanayay ayaa naloo diidan yahay inaan aragno dadka halkaasi ku xiran markaas kadib wasaaradda amniga gudaha waxa ay tiri waa in toddobaad ka hor aad soo gudbisaan waqtiga aad doonaysaan in aad timaadaan macnaha si goobta loo sii diyaariyo oo haddii ay jiraan waxyaabo qaldan loo sii saxo marka Ilhaan Cumar shalay iyada oo ay weheliso xildhibaanada la yiraahdo Pramila Jayapal oo xubin sare oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga kuna jirta guddi hoosaadka immigration-ka ee Congress-ka iyo weliba guddiga la xisaabtanka ayay halkaasi tageen waxay yiraahdeen markii aan tagnay waad aragtaan sawiradan markii ay sii galayeen kadib waxaan la kulanay saraakiil ka tirsan ciidamada ICE iyo kuwa kale oo wasaaradda amniga gudaha ka tirsan waxaana nala ka saxiixa ay yiraahdeen waraaq cadaynaysa in dadka halkaasi ku jira aanan la hadli karin amaba aanan u dhowaan karin waan saxiixna ayay yiraahdeen markaasi kadib markii ay xarunta tageen oo ay ka soo baxeen ayaa albaabka xarunta ay shir jaraa'id ku qabteen waxaa sidoo kale weheliyay qaar ka mid ah hogaamiyaasha community-ga iyo dadka xuquuqda dadka soo galootiga ah ee sharci la'aanta ah u dooda markaasi kadib Ilhaan Cumar waxa ay tiri markii aan galnay gudaha waxa aragnay dad oo kooxa ah oo xabsi ku jira isla markaana qolal kala duwan ku jira qaarkoodna sidoo kale loo process gareynayo in wadanka laga masaafuriyo marka waxa ay tiri waxa noo suura gashay inaan xogo kala duwan aan helno dadkaasi wadamada ay ka kala yimaadeen iyo sidoo kalena process garoontooda sida ay u socoto laakiin waxa ay tiri su'aalo toos ah oo fudud oo aan weydiinay saraakiisha immigration-ka ee halkaasi joogtay ma aysan noo suura gelin inay nooga jawaabaan laakiin wayba ka caroodeen su'aalahaasi aan weydiinaynay su'aalaha aan weydiinaynay waxa ka mid ah ay tiri imise qof ayaa hadda ICE ay guud ahaan gobolka Minnesota ay ku hayaan iyo sidoo kalena su'aalaha kale oo aan weydiinay waxa ka mid ahaa saraakiisha ciidamada ICE ee hadda jooga gobolka Minnesota ma tiradii ka hor intii howlgalkii Operation Metro Surge oo bilaaban joogtay gobolka mise waa ay ka badan yihiin mana loo ka jawaabin ayay tiri waxaan sidoo kale weydiinay ayay tiri maxay ciidamada ICE ka bedeleen qaabka ay dadka u soo qabqabanayaan iyo howlgalladooda kadib howlgalkii Operation Metro Surge marka waxay tiri dhammaanba su'aalahaasi oo ahaa su'aalo iska fudud markii aan weydiinay saraakiisha ICE oo halkaasi joogtay si cara leh ayay u qaabileen isla markaana ma aysan gabi ahaanba nooga jawaabin laakiin waxay tiri annaga ka xubna Congress ahaan waxa ay waajibkeenu uu yahay la xisaabtanka hay'adaha dawladda maxaa yeelay dadka deegaankana la ka soo doortay Congress-ka iyo dastuurka ayaa arintaasi nafaraya marka waxa ay tiri dhibaatooyinkii ciidamada ICE ay ka geysteen gobolka Minnesota ma noqon doonaan
kuwa la hilmaamo oo la iska tuuro laakiin waxay noqon doonaan kuwa mar kastaba aan daba soconno oo aan iftiimino haddaba waa tan Ilhaan Cumar oo arrintaasi ka hadlaysa. We just conducted a tour of Whipple Detention Center. And we were able to also have a sit-down conversation with HSI and ICE. We were able to talk to them about many things, especially including what we all experienced doing Metro Search. Today, when we went in to Whipple Detention Center, we saw that there were dozens of people that are being held, that are being processed to be deported out of the country. We were able to get information on the different countries of origin and how that process is going to play out. We were able to also ask direct questions that seemed to frustrate the agents that we had the opportunity to have a conversation with. Simple questions like how many people does HSI have currently in the state? Simple questions like how many ICE agents do we have? Are we back to the normal numbers that we used to have before Metro Search? Simple questions like are you going to change your processes and procedures from what you've learned from how your agents conducted themselves doing Metro Search that was not sustainable. Simple questions like that drew frustration and fury from them, not understanding that we are simply doing our jobs as members of Congress to do the oversight that we are required to do on behalf of our constituents, on behalf of Congress, and on behalf of the Constitution. And so we will continue to press them. We will continue to make sure that these atrocities that were committed do not remain in the darkness, that they come to light. xubnahan waxay xaqiijiyeen in ciidamada ICE ay u sheegeen ilaa 300 oo qof oo hadda dad sharcilaana gobolka Minnesota inay ku xiran yihiin marka shirka jaraa'id intii ay qabanayeen ayaa waxaa xarunta ICE ka soo baxay maadaama albaabka ay shirka jaraa'id ku qabanayeen gawaari cadcad oo dadka marka la masaafurinayo ama xarun kale oo lagu sii hayo la geynayo lagu qaado waxayna ay xaqiijiyeen in 38 qof ay saarnaayeen gawaaridaasi isla markaana inta badan dadkaasi waxa la geeyaa magaalada New Orleans ee gobolka Louisiana marka la masaafurinayo amaba waxa la geeyaa xarumo kale oo lagu sii haynayo waxaana Ilhaan Cumar ay xaqiijisay sidoo kale in ay arkeen qolalka dadku wadamada ay ka soo kala jeedaan inay ugu kala xiran yihiin qol waxaan aragnay Laos ay ku qoran tahay oo 15 qof ay ku jiraan qol kale waxaan aragnay Mexico ay ku qoran tahay oo 12 qof ay ku jiraan marka waxay xaqiijisay in dadku ay qolalkaasi ku kala xiran yihiin. That is a van that is taking people to deportation flights right now. These are all people that are being trafficked by And that's what happens on Tuesdays and Fridays. So what you just saw were the vans of people who are being taken to deportation flights. While we were in there, we saw that there were people from Laos, a Laotian population, Mexican population that are being taken from here to their flights or to other facilities where they will be deported to their countries. The primary place they told us they were taking people is to New Orleans, and that is where they will be deported from. laakiin xildhibaanad Pramila Jayapal ayaa waxay sheegtay in waxyaabo laga naxo ay ku soo arkeen xaruntaasi waxa kamid ah ay tiri dadku in qolalkooda iyagoo ku jira ay silsiladaysan yihiin oo darbiga ay silsilad kula xiran yihiin arintaasina waxay tiri ma ahan arin looga bartay xarumaha sida ku meel gaarka ah dadka loogu sii hayo haddii qofka xarunta ICE lagu xiro ay tahay la garay laakiin waxay tiri arintan xabsiyada ama jeelalka xitaa kama dhacdo qofka marka la soo qabto
oo la keeno xaruntaasi Whipple Federal Building ilaa iyo marka laga saarayo silsiladaasi ayuu ku xiran yahay. Arrintaasina waxa ay tiri waa arrin aan horay aanan u arkin isla markaana aan caadi ka ahayn xarumaha sida kumeel gaarka ah dadka sharci la'aanta marka la soo qabto loogu hayo. Haddaba waa tan iyadoo arrintaasina ka hadlaysa. This is obviously a holding facility, but during Metro Surge we know that it was holding people for a very long time and acting as a detention facility. I was shocked to see that everyone in here has leg restraints. That is not a common practice in holding facilities and detention centers. Even in jails. Or even in jails, prisons. that's right, in prisons. And we saw one individual who was in a cell by herself with leg restraints, with ankle chains on her. And she was by herself, and apparently that is the practice when you are picked up to when you are released. And the reasons that we were given for that is, well, you know, we don't know if they might attack us as they're being processed, as they're making a phone call. Please don't forget that Republicans gave ICE and CBP $210 billion. There are many more officers in these facilities to handle those kinds of things. It makes no sense to me. It feels very inhumane to me that we would be having those ankle chains on people from the time they're picked up to the time that they're released. That was a different experience to see that. The other piece that I want to touch on is our job is to demand accountability and to demand answers. wasaaradda amniga gudaha oo arrintaasina wax laga weydiiyey way iska fogeeyeen. waxay yiraahdeen dadka goobtaasi ku xiran caafimaadkooda waa ay helaan, cuntadoodana waa ay helaan, biyo nadiifana waa ay helaan. waxay sidoo kale dadka sharci la'aanta ah ee Mareykanka ku sugan ay wasaaradda amniga gudaha ay sheegtay in wasaaradda amniga gudaha qofkii iskii isku masaafuriya la siinayo lacag $2,600 ticketkana laga bixinayo. qofkaasi hadduu si mutadawacnimo isku masaafuriyo wadanka dib waa ugu soo laaban karaa qaab sharci ah, laakiin haddii lagu soo qabto oo lagu xiro oo lagu masaafuriyo xuquuqdaasi waad waynaysaa oo wadanka Mareykanka mar kale dib mustaqbalka uguma soo laaban kartin. marka waxay wasaaradda amniga ugu baaqaysaa dadka inay ka faa'iideystaan arrintaasi ay dawladdu u soo bandhigtay oo ah $2,600 in qofka la siinayo haddii iskii uu isku masaafuriyo markaasi kadibna mustaqbalka inuu wadanka loo dacwoon karo uu dib ugu soo laaban karo. arrintaasina wasaaradda amniga gudaha sidaasi ayay leedahay dadka sharci la'aanta ku jooga wadanka.